soo dhawaada asxaabay maanta waxa idin soo koobi doonaa filim Japan ee Zombie oo soo baxay 2016 filimka magaciisu waa I Am Hero waana kan filimku ee daawo oo taxadir filimku waxa uu ku bilaabanayaa nin farshaxamiista oo lagu magacaabo Suzuki waxa uu Suzuki la fadhiyaa asxaabtiisa shaqada waxaanay TV-ga ka dhageysanayeen wararkii ugu dambeeyay wariyada TV-ga ka hadlisay waxay ka warramaysay dhacdo haweeney 45 jir ah oo ay qaniinay sidoo kalena waxay ka warramaysay nin 35 jir ah oo loo soo xidhay kadib markii ku kacay falandabiyeedyo xunxun dhammaan shaqaalaha xafiiska fadhiya waxay la yaabanayeen wararka xunxun ay maanta maqlayaan Mitani oo ah nin la shaqeeyay Suzuki ayaa aad uga maadsanayay Suzuki maadaama uu Suzuki aad u jecel yahay inuu noqdo farshaxamiistaha ugu weyn ee manga inta kadib Suzuki ayaa Mitani u sheegay in farshaxanka manga uu yahay hidiyo dhaqanka ugu sareeya ee dalka Japan ayna sharaf u tahay inuu noqdo farshaxamiiste manga ah waxa uu Mitani ku dhiirigeliyay inuu noqdo farshaxamiiste manga ah inta kadib dhammaan shaqaalihii waxay bilaabeen inay kor u qayliyaan iyagoo leh farshaxanka manga ayaa ugu fiican farshaxamada inta kadib Suzuki waxa uu aaday gurigiisa waxa uu ugu tagay saaxiibtiis Teeko oo xanaaqsan oo TV-ga daawanaysa Suzuki waxa uu bilaabay inuu sawiro farshaxamkiisa riyadiisa ugu weyn waxay tahay inuu noqdo farshaxamiistaha ugu weyn ee Japan Suzuki waxa uu kala furay kabadhkiisa waxa uu kala soo baxay qorigiisa waxa uu ku jeediyay muraayada subaxnimadii xigtay Suzuki waxa uu soo aaday xafiiskiisa shaqada Suzuki waxa uu sawirayay farshaxankiisa waxa uu sawiray nin manga ah oo saaxiibtii ku ilaalinaya qori waxa uu tusay nin kale isagoo weydiinaya qaabka uu u sawiray laakiin ninkani waxa uu Suzuki u sheegay inuu qabto shaqo kale oo ka wanaagsan farshaxanka inta kadib waxa Suzuki u yimid nin kale oo farshaxamiiste ah oo lagu magacaabo Sensei waxa uu tusay abaalmarin uu 15 sano ka hor ku qaatay farshaxanka manga habeennimadii markii la gaaray waxaynu aragnaa Suzuki oo la dagaalamaya saaxiibadii Teeko taasoo doonaysay inay iibiso qorigiisa si ay u hesho xogaa lacag ah oo ay ku bixiso kirada guriga sidoo kale Teeko waxay doonaysay inay iibiso dhammaan buugta farshaxanka ee Suzuki Teeko waxay aad ugu qaylinaysay Suzuki iyadoo u sheegaysa inaysan haysan lacag ay xitaa iskaga bixiyaan kirada guriga waxayna Suzuki ka soo saartay guriga inta kadib Suzuki waxa uu soo baxay banaanka isagoo wata qorigiisa waxa uu akhrinayay buug farshaxan majaajila ah oo ka soo qaatay Sensei waxaana ag fadhiyay nin darbajiif ah oo gariiraya oo u muuqda inuu cudur hayo laakiin Suzuki ma uusan siin wax dareen ah lamana uusan hadlin subaxnimadii xigtay waxaynu aragnaa Suzuki iyo asxaabtiisa oo jooga goobtii shaqada waxayna daawanayeen war telefishinka ka socday waxa uu warku sheegayay warbixin ku saabsan virus cusub oo soo galay dalka Japan kaasoo dilay 4 qof inta kadib Suzuki waxa uu arkay Sensei saaxiibadii oo qoorta ay kaga taalo calaamadii waxayna Suzuki u sheegtay in Sensei laga helay viruska Mitani ayaa sheegay in virusku uu aad ugu faafayo magaalada isla markii waxa xafiiskooda soo galay nin shaqaalaha kamid ah oo isna calaamad qaniye ah leh waxayna indhihiisu ahaayeen kuwa sii madoobaanaya markasta laakiin cidna ma aysan dareemin in ninkani uu isbedelayo inta kadib dhamaantood waxay seexdeen xafiiska goor hore oo subaxa Suzuki waxa soo wacday saaxiibtiis Teeko iyadoo ka raali gelinaysa dhibkii ay u geysatay waxayna ka codsatay inuu guriga ku soo laabto haddaba Suzuki oo ku hadlaya taleefanka ayaa waxa uu arkay helikobtaro badan oo dul maraya magaalada waxa uu ka soo tagay shaqada isagoo aad u la yaaban waxa uu arkay isla markiibana waxa uu gaaray guriga saaxiibtiis Teeko isagoo u wada cunto fudud oo ay jecleyd iyadu waxa uu ku garaacay albaabka laakiin cidna kama furin albaabkii waxa uu taagnaa in badan bal in saaxiibadii ay ka furto albaabka waxa uu wacay taleefankeeda balse waa ayba ka qaban weeday inta kadib waxa uu bilaabay inuu ka fiiriyo daloolka albaabka waxa uu arkay Teeko oo sariirta ku jiifta waxa uu arkay iyadoo ka soo dhacaysa sariirta haddana waxa uu arkay iyadoo sida robadka isku rogrogaysa ugu dambeyntiina waxay furtay albaabka waxa uu arkay in Teeko wajigooda uu eekaaday zombie wayna soo weerartay waxayna isku dayday inay ka qaniinto qacanta waxa uu madaxa u galiyay bir af leh sidaas ayuuna kaga soo baxsaday Suzuki waxa uu ka soo tagay guriga si kadis isagoo maraya wada buunta ah ayaa waxa uu arkay gabadh qacanta dhiig ka da'ayo waxa kale uu arkay diyaarado badan oo magaalada kor wareegaya markii uu ku soo laabtay xafiiskii shaqada Suzuki waxa uu arkay Mitani oo sii jeeda oo taagan TV-ga dhinaciisa waxa uu arkay isagoo wata usha kubadda kolayga oo dhiig leh sidoo kale waxa uu arkay dhammaan gidaaradii xafiiska oo wada dhiig ah Mitani ayaa u sheegay in dhammaan shaqaalihii xafiiska joogay ay wada noqdeen zombies ayna soo weerareen isaga uuna la dagaalamay
iyagoo wada hadlaya ayaa waxa gariiray Mitani. Suzuki waxa uu arkay in lugta dhiig ka da'ayo, waxa uu ogaaday in la qaniinay isagana. Mitani waxa uu isku bedelay zombie, isla markiibana waxa uu soo galay koox shaqaalaha ka mid ah oo iyaguna isku bedelay zombie. Suzuki si dhaqso leh ayuu uga cararay goobta. Suzuki waxa uu dhex ordayay wadooyinka magaalada, waxa uu arkay dadkii oo qaar isku bedeleen zombie, qaarna ay ka ordayaan zombiyada. Suzuki waxa uu dhawaaday nin askari ah si uu u badbaadiyo, balse waxa uu arkay in askariga laftiisuba uu isku bedelay zombie, waxa uuna soo eryaday isaga. Suzuki waxa uu arkay dadkii oo hal dhinac u wada ordaya, waxa uu arkay in baabuurtu isku dhacayaan, sidoo kalena dhismayaasha magaaladu ay gubanayaan. Waxa uu arkay nin darawal taksi ah oo dhex hurda gaadhigiisa oo aan gebi ahaanba ka warqabin waxa ka socda magaalada. Suzuki oo isku dayay inuu gudaha u galo taksiga ayaa waxa uu soo dhawaatay gabadh lagu magacaabo Hiromi, taasoo ah ardayda dugsiga sare dhigata. waxaana u soo dhawaaday zombie telefoon ku hadlaya, waxa uuna ku dhacay dhulka. Isla xilligaasna waxa uu arkay nin suud madow xidhan oo raba inuu dhex galo taksiga. Waxay bilaabeen inay garaacaan daaqadaha taksiga. Ugu dambeyntiina waxaa kacay taksiilihii oo ka furay daaqada. waxay awoodeen inay ka baxsadaan goobta, waxaanay darawalka ka codsadeen inuu u kaxeeyo baadiyaha. waxay shiteen TV yar oo ku xidhnaa taksiga. Suzuki waxa uu ictiqaaday in magaalada Tokyo aanu gaadhin fayrasku, maadaama kanaalkoodu uu soo deynayo aflaam kartoon enemy ah, laakiin kanaalku waxa uu dhameeyay kartoonkii enemyska ahaa. waxa uuna bilaabay inuu ka warbixiyo fayraska faafaya. Isla markiiba waxay arkeen ninkii suudka xidhnaa oo aad u xanaaqsan oo telefoon ku hadlaya, kaasoo sheegaya in qof walba la toogto, xataa ra'iisul wasaaraha. markii uu telefoonkii dhigay, waxa uu bilaabay inuu cawdo iyaga, waxa uuna bilaabay inuu muujiyo calaamad qaniye ah oo kaga taalay qacanta. isla markiibana xididadiisa dhiigga ayaa madoobaaday, waxa uuna bilaabay inuu isu bedelo zombie. waxa uuna ninkii taksiile ahaa ka codsaday inuu qacantiisa u dhiibo. haddaba ninkan taksiile ahi ma uusan ogeyn in ninku isbedelay, waxa uuna u dhiibay qacantiisa. waxa uuna bilaabay inuu qaniino ninkii taksiilaha ahaa. ninkii taksiile ahaa waxa uu bilaabay inuu furo daaqada baabuurka. Suzukina waxa uu dibadda u tuuray zombigii. intaa kadib waxay sii wateen socodkooda, laakiin taksiilaha ayaa xididadiisu waxay bilaabeen inay madoobaadaan. waxa uuna Suzuki u sheegay inuu muddo 30 sano oo ahaa darawal taksiile ah, weligiina uusan gelin wax shil ah. waxa uu bilaabay inuu aad u qayliyo, baabuurkuna uu ku kaxeeyo speed aad u sarreeya sida qof waalan oo kale. Hiromina waxay markiiba gashay kursiga dambe ee baabuurka iyadoo ka baqanaysa in darawalku qaniino. waxa uuna darawalkii bilaabay inuu soo weeraro iyaga. Suzuki iyo Hiromi waxay bilaabeen inay xidhaan suunka maadaama baabuurku uu ku soconayo speed aad u sarreeya. wax yar kadibna waxay ku dhaceen baabuur kale. labadoodiibana waxay ka soo baxeen gudaha baabuurka, waxaanay arkeen in jidadkii oo dhan baabuurku go'an tahay. dhammaan baabuurtanina waxa ay galeen shilal, waxayna arkeen in baabuurta oo dhami faaruq yihiin. waxayna fadhiisteen wadada dhinaceeda. Suzuki waxa uu bilaabay inuu internetka ka baaro wararka cusub ee dalka. waxayna ogaadeen in magaca fayraska la yiraahdo SARS-CoV-2. sidoo kale waxay akhriyeen macluumaadka ku saabsan fayraska iyo sida ay noqon doonaan dadku marka uu cudurku ku dhaco. sidoo kale waxay ogaadeen in fayrasku uu si kala duwan u asiibayo jidhka aadanaha. waxayna akhriyeen warbixin sheegaysa in dadka badbaaday ay isugu tagaan dhismaha Fuji. iyagoo akhrisanaya macluumaadka fayraska ayaa waxa ka damay moobilkii. habeennimadii waxay heleen guri cidla ah. labadoodiibana waxay cuneen cuntadii fududayd ee Suzuki u soo iibiyay saaxiibtiisii zombiga noqotay. waxayna dhageysanayeen muusig. Hiromi waxay Suzuki u sheegtay inay la joogistiisa ammaan ku dareemayso. subaxnimadii xigtay, Suzuki waxa uu eegayaa Hiromi oo jambigiisa ku jiifta, waxaanay u muuqataa inuu aad uga helay iyada, inkastoo ay aad uga da'yar tahay. isagoo eegaya ayaa waxa uu si lama filaan ah qoorteeda ugu arkay qaniinyo ku taal. isla markiibana waxa uu soo qaatay qorigiisa si uu isaga ilaaliyo iyada. Hiromi waxay ka codsatay inuu dilo iyada maadaama aanay dunida rajo ka sii lahayn, laakiin Suzuki waa uu ka diiday. waxa uuna ku dhaartay inuu ilaalinayo ilaa inta ay ka gaadhayaan dhismaha Fuji. waxay ka soo baxeen gurigii, waxaanay soo dhex galeen gudaha kaynta. laakiin iyagoo dhex socda kaynta, Hiromi ayaa istaagtay. waxay Suzuki u sheegtay inay dareemayso xumad aad u xun, waxayna Suzuki ka dalbatay inuu ka tago iyada. waxayna u sheegtay in haddii uu cudurku ku sii bato ay soo weerarayso isaga, iyaduna aysan rabin inay cunto isaga. waxaanay hadiyad sagootin ah uga dhigtay eerifoonkeedii dhagaha, iyadoo ka dalbatay inuu iskaga tago iyada. isla markiibana waxay bilowday inay isbedesho. jidhkeeda badh ka mid ah ayaa noqday zombie. Suzukina waxa uu bilaabay inuu ka cararo iyada. waxa uuna arkay nin dhex maraya kaynta, uuna u dhawaaday, balse waxa uu arkay in ninkan laftiisuba uu yahay zombie. waxa uuna bilaabay inuu soo weeraro, isagoo u dhow inuu cuno ayaa waxa badbaadisay Hiromi. waxayna bilowday inay jidhkii zombiga midhmidh u siibto, waxayna soo kicisay Suzuki.
marka xigta waxaynu aragnaa labadooda oo jooga jardiinka trailerka. Suzuki waxa uu raadinayaa cunto ay cunaan, waxa ay heleen xoogaa cunto ah. Suzuki waxa uu arkay in Hiromi ay leedahay dareenka zombiiska, laakiin waxa uu og yahay inaysan khatar ku ahayn isaga maadaama ay weli leedahay jidhkii bini'aadamka. dabcan Hiromi hadda ma ahan bini'aadam buuxa oo barbaa zombi ah. waxay sii wateen socodkooda iyagoo dhex maraya kaynta. dhowr maalmood kadib waxaynu aragnaa Suzuki oo dhabarkiisa ku sida Hiromi, waxauna kaynta dhexdeeda ka helay gaadhi yar oo shoobin. inkastoo aanu wax cunto ka helin, haddana waxa uu saaray Hiromi isagoo ku riixaya gaadhiga, waxauna sii watay socodkiisii ku wajahnaa dhismaha Fuji. markay yimaadeen goobta waxa uu arkay in meeshuba ay tahay faaruq. waxa uu galay carwo aanay cidi joogin, isagoo isku tijaabinaya mid ka mid ah jaakadaha carwada ayaa waxa soo weeraray ninkii dukaanka lahaa oo zombi ah. Suzuki waa uu iska celiyay, waxauna awooday inuu ka baxsado. waxaana u timi gabadh lagu magacaabo Sugumi Oda, waxaanay aragtay Hiromi oo dhex hurda gaadhiga yar. sidoo kalena waxa u yimid dad kale oo maask xidhan. intaa kadib iyagoo wada hadlaya ayaa waxa soo muuqday zombies fara badan, isla markiibana waxay ka carareen goobta iyagoo raadinaya meel ammaan ah oo ay kaga dhuntaan. dhammaan dadkii aan cudurka qabin waxay bilaabeen inay raadiyaan meel ammaan ah oo ay ku dhuntaan, waxaanay ogaadeen in haddii ay dhismaha sare tagaan ay ka badbaadayaan zombiga. kooxdiina waxay ogolaadeen inuu Suzuki ku soo biiro kooxdooda, waxaanu dhabarka ku soo qaaday Hiromi isagoo cidna u sheegin inay tahay zombi. waxayna bilaabeen inay dhistaan meel ammaan ah. dhammaan saacadahoodiina waxay ku ururiyeen hal meel. habeennimadii Sugumi waxay u timi Suzuki, waxayna bilowday inay su'aalo ka weydiiso shaqooyinkiisa, laakiin Suzuki waxa uu sheegay inuu kaliya yahay farshaxaniiste manga ah. sidoo kale waxay weydiisay in Hiromi ay tahay walaashii, laakiin waxa uu sheegay inay ku kulmeen iyagoo ka cararaya zombiga. intaa kadib Sugumi waxay u muuqataa inay ka heshay Suzuki maadaama ay ogaatay inuu yahay qof wanaagsan. habeenkaas Sugumi iyo Suzuki waxay ka wada sheekaysanayeen arrimaha fayraska. subaxnimadii xigtay Hiromi waxay aragtay Suzuki oo ag fadhiya oo wata qorigiisa oo ilaalinaya iyada, wayna dhoola cadaysay. Suzukina waxa uu arkay in Hiromi aysan weli isbedelin, uuna u dhoola cadeeyay isaguna. intaa kadib Suzuki waxa uu eegayaa zombies fara badan oo xaggooda u soo socda, waxauna arkay mid ka mid ah oo aad u boodaya kadibna dhulka la gelaya madaxa. kadibna waxa uu tagay oday meesha taagnaa oo lagu magacaabo Abi, waxayna ka wada sheekaysanayaan sida zombiesku ay u sameynayaan waxay waagii hore ay sameyn jireen iyo sida zombiesku u kala duwan yahay qaabkoodu. Suzuki iyo odaygii waxay arkeen zombies isku bedelaya dhuxul, wayna la yaabeen. intaa kadib Suzuki waxa uu aaday kulan ay lahaayeen kooxdii badbaadi, waxayna qorsheynayeen inay galaan dukaan ku yaal dhismaha hoose si ay cunto uga soo qaataan. waxayna Suzuki ka codsadeen inuu siiyo qorigiisa si ay isaga ilaaliyaan zombiga, laakiin Suzuki waa uu ka diiday isagoo sheegay inay sharci darro tahay in la laayo zombiga. laakiin hogaamiyahooda oo lagu magacaabo Laura ayaa ugu hanjabay inuu dili doono Hiromi haddii uu u diido qorigiisa. dhanka kale qaar ka mid ah kooxdooda ayaa isku dayay inay aftuubtaan Hiromi. Sugumina waxay difaacisay Hiromi. dhanka kale Suzuki ayaa shakiyay, waxauna si degdeg ah uga soo baxay shirka. waxauna arkay Hiromi oo laga soo saaray teendhadii, waxauna ku hanjabay inuu dili doono hogaamiyahooda Laura haddii ay sii dayn waayaan Hiromi. Laurana waxa uu bilaabay inuu baaskoolad ku fiiqo Hiromi. dhanka kale Hiromi ayaa u adkaysan weeyday waxa meesha ka dhacaya, waxaanay bilowday inay labadii ninba ku tuurto awoodeeda. dhammaan dadkii oo dhanna waxay ogaadeen in Hiromi ay qabto fayraska ayna tahay zombi. indhaheeduna waxay noqdeen madow. intaa kadib mid ka mid ah kooxdii ayaa Hiromi fallaadh madaxa kaga dhuftay, waxayna ku dhacday dhulka. dhanka kale kooxdii waxay soo weerareen Suzuki, waxayna awoodeen inay ka qaataan qoriga, waxayna bilaabeen inay feer iyo laad ku daandaamiyaan, waxaanay gudaha u geliyeen teendho. waxayna isku haysteen anaa dilaya iyo anaa dilaya, laakiin gudoomiyahooda Laura ayaa ku amray inaysan dilin oo ay iskaga tagaan, wayna ka tageen. Suzuki waxa uu ka soo baxay teendhada, waxauna arkay Sugumi oo hor fadhida teendhadii Hiromi. intaa kadib Suzuki waxa uu aaday odaygii magaciisa la odhanayay Abi isagoo caawimaad weydiisanaya. Sugumina waxay meel ku qarinaysay Hiromi oo weli nool. intaa kadib Suzuki waxa uu soo aaday Sugumi. waxay Suzuki u sheegtay inay Hiromi aysan la mid ahayn zombiga kale maadaama wadnaheedu uu garaacmayo. waxayna sheegtay in markii fayrasku bilaabmay ay ka soo carartay shaqadeedii neerasnimo, bukaankeedina ay ka soo tagtay iyagoo isbitaalka jiifa. waxayna Suzuki ku bogaadisay sida uu Hiromi u soo badbaadiyay iyadoo weliba fayraska qabta. laakiin Suzuki weli uu murugaysan yahay maadaama uu xabad ku dhufan kari waayay Laura.
waxauna naftiisa ku tilmaamayay inuu yahay fulay laakiin Sugumi waxay ku qancisay inuu yahay qof wanaagsan Suzuki waxa Sugumi u sheegay inuusan lahayn sifooyin ka dhigi kara qof wanaagsan waxauna Suzuki Sugumi ka codsaday inay sii daryeesho Hiromi waxauna sheegay inuu aadayo kaydka cuntada si uu xoogaa cunto ah ugu soo qaado inta kadib waxaynu aragnaa qaar ka mid ah badbaadayaasha oo weel gargaraacaya si ay u soo jeediyaan zombiiska hoos jooga si ay ugu soo yaacaan iyaga halka qaar kalena ay u sii jeedaan kaydka cuntada ee dhismaha hoose markay soo gaadheen goobta waxay arkeen gudaha dhismaha oo mugdiya waxay iibsadeen tooshkoodii iyagoo gudaha ku jira ayaa waxa la shiday leedhkii laakiin isma aysan weydiin cidda leedhka shiday isla markiibana waxay heleen cuntadii kaydka taalay laakiin iyagu ma oga in meesha kaamarad ku xidhan tahay qof ayaana ka eegaya kaamarada ammaanka ee ku xidhan meesha inta kadib mid iyaga ka mid ah oo cunto raadsanaya ayaa waxa soo weeraray zombie waxayna toogteen ninkii iyo zombigii labadoodiiba isla markiibana waxa ku soo yaacay zombies fara badan oo joogay dhinaca baarkinka baabuurta kuwaas oo maqlay dhawaqii rasaasta dhanka kale Suzuki ayaa waxa uu ka soo cararay goobta waxa uu soo maray mid ka mid ah dadkii badbaaday oo zombie cunayo laakiin muu badbaadin karayn maadaama zombie fara badan meesha joogeen dhammaan kooxdii oo dhan waxa soo weeraray zombigii waxaanay ku cuneen meeshii dhanka kale waxaynu aragnaa Laura oo kaamarada ka daawanaya waxa dhacaya waxauna sii dheereeyay codkii muusiga si uu u soo jeediyo zombiiska dhammaan zombigiina waxay ku soo qulqulayeen dhinaca iyo baarkinka baabuurta Suzuki waxa uu ku dhuntay sanduuq meesha yaalay isla xilligaasna zombigii boodayay ayaa u soo booday xaggii sare ee dhismaha waxaana uu ku dul dhacay teendho dhismaha sare ku taalay gabadh ka mid ah dadkii badbaaday ayaa aragtay zombiga boodaya waa uuna soo weeraray iyadii waa uuna cunay isla markiibana waxa uu weeraray gabadh kale oo meesha ku sugnayd waxa uuna qacmihiisa ku qabtay madaxeeda sidaas ayuuna ku cunay iyadana dhanka kale Laura waxa uu daarayaa sameecadaha muusiga si ay zombi badan u soo galaan goobta Suzuki oo wali isqarinaya ayaa waxa uu daloolka ka arkay in dhammaan dadkii oo dhan ay cuneen zombiisku dhanka kale Sugumi oo aad u argagaxsan ayaa waxay Hiromi kula dhuumanaysaa dhismaha sare waxayna codsanaysaa in la caawiyo oo la badbaadiyo laakiin cidina umaysan soo jawaabayn iyada dhanka kale Suzuki waxa uu ku dhuumanayaa sanduuqa isagoo isku dayay inuu ka baxsado goobta waxa uu niyeysanayay inuu ka baxo sanduuqa oo iska celiyo zombiiska laakiin haddana waxa uu aaminay in si kasta uu isu difaaco ugu dambeyntii la cuni doono sidaa awgeed waxa uu go'aansaday inuu iskaga sii jiro sanduuqa laakiin haddana waxa uu maqlay Sugumi oo qaylinaysa caawimaadna dalbanaysa waxa uuna soo xasuustay Hiromi taasoo ku khasabtay inuu ka adkaado cabsidiisa oo uu ka soo baxo sanduuqa Suzuki isla markiiba waxa soo weeraray zombie oo isku dayay inuu qaniino laakiin nasiib wanaag qacantiisa waxa ku xidhnaa 10 saacadood oo uu isaga ilaalinayay qaniiyada zombiga sida awgeedna waxa uu ka baxsaday zombie waxa uu qaatay taleefankii badbaadada waxa uu la hadlayay Sugumi waxa uu u sheegay inay ku kulmaan baarkinka baabuurta Suzuki waxa uu soo qaatay saliid baabuur waxa uu dhulka ku daadiyay saliidda si zombigu ugu siibtaan Sugami waxay dhabarkeeda ku soo qaaday Hiromi waxaanay soo aaday dhinacii baarkinka baabuurta markii ay goobta soo gasheen waxay aragtay Laura oo jooga goobta waxaanay weydiisay inuu arkay Suzuki laakiin sidoo kale Laura waxa ku taal qaniinyo waxa uu si dhaqso leh isugu bedelay zombie waxa uu bilaabay inuu soo weeraro Sugami laakiin waa ay ka carartay iyadoo xambaarsan Hiromi balse nasiib wanaag Suzuki ayaa yimid oo badbaadiyay waxa uu rasaas madaxa kala dhacay Laura wax yar kadib waxay arkeen koox zombie ah oo eryanaysa aabi wayna qabsadeen halka ayayna ku cuneen haddaba saddexdooduba waxay dhexda uga jiraan guutooyin zombie ah mana garanayaan wax ay sameeyaan laakiin Hiromi waxay bilowday inay hadasho iyadoo Suzuki u sheegaysay waxay dareemayso waxaanay Suzuki ku dhiirigelinaysaa inuu toogto zombiiska inta uu awoodo inta kadib Suzuki waxa uu wada toogtay dhammaan zombiyadii marka laga reebo zombigii boodayay waxaana Suzuki u harsanayd hal rasaas oo kaliya waxaana soo weeraray zombigii Suzuki waxa uu awooday inuu zombigii madaxa rasaastii kaga dhufto laakiin zombigani ma aha mid xabadu wax ka tarayso waxaanu awooday inuu mar labaad soo kaco oo uu weeraro Sugami iyo Hiromi laakiin geesigiisa Suzuki isma uusan dhiibin waxa uu qorigiisa u isticmaalay bur ahaan waxa uu burburiyay madaxii zombiga sidaas ayayna dhammaantood kaga badbaadeen zombiga waxaanay baarkinka kala soo baxeen baabuur wayna ka tageen goobta inta ay ku dhex jireen baabuurka Sugami waxa ay shidatay xabad sigaar ah filimku waxa uu dhamaanayaa Suzuki oo eegaya farihiisa oo uu ka buuxo dhiigii zombiga waxa uu naftiisa u qiray inuu yahay geesi haddaba daawadayaal waxaanu soo gaarnay gabagabada muuqaalka waxaanu ka codsanaynaa inaad muuqaalka like saartaan sidoo kalena subscribe dhahdaan kanaalka si aan u soo badino muuqaaladan oo kale mahadsanid